السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات ما حد لي كرمانتي waxaan doonayaa inaan madaxweyne farmaajo fariin u diro dalkan baka adiga madaxweyne ka wixii dhacayna maalinta qiyaama waa lagu su'aalayaa madaxweyne gobolka Gado indhaha maxaad ugu furi laabahay xasuuqa ceelwaaq maxaad u arki laabahay wariyihii dhibkii dhacay soo bandhigay shala galab baa la qaatay ninkii la qaatana ma soo noqdo dadkii aynu jecleen waa dhinteen sabab ay ku dhinteen ma garanayno dadka yagi aqliga lahaa waa dhinteen sabab ay ku dhinteen ma garanayno dadka yagi awood lahaa waa dhinteen sabab ay ku dhinteen ma garanayno madaxweyne anaga islaam baynu nahay dalkan buu ku dhalanay Soomaali baynu nahay ciidan baan iska leenahay maalin walba nin qaali anaga baxayo intaasoo sano maan hadli jirin 8 sano baan arkay xasuuqa Jubbaland geysanayso dhibkeeda aniga hata way igu dhacay ma ka hadlin ma qaadanaya inuu Maxamuud maanta dhinto madaxweyne Axmed Madoobe telefoon degdeg ugu dir wiilkan maanta 10 saac yuusa gaarina gurigoodii ku soo celi hadaa sidaas yeeli wayso u dhinto adduunkana waan ku weydiinaynaa qiyaamahana waa lagu weydiinayaa madaxweyne dadka ceelwaaq waa Soomaali madaxweyne dadka ceelwaaq waa ummad dhulka u dhalatay madaxweyne inay Kenya xasuuqda cadaalad ma ahan qof kasta oo Soomaaliya waa u dhintay gobolka waqooyi bari ha joogo ama gobolka Gado iyo Jubbooyinka ha joogo ogaadeen ha ahaado hadaa moodaysiin Axmed Madoobe inuu ogaadeen asxaan u hayo wiilkayga abiisa ogaadeen buu ahaa gacantiisa ayaana lagu dilay markaan Garbahaare ayadoo aan loo dhamaanaya ceelka qoday oo dadka reer Garbahaare ceelka fareenbada u yaqaanaan Cabdiraxmaan Cawar uu soo weydiiyay taariikh nololeedkayga dadka degmada subaxii aan Gaaris u safray aan iri maalintayda ka hor ma dhimanayo cagaha markaan soo dhigay wiilkayga abiisa waa la qaatay hotelka aadan bare ducaalo nomad baa loogu yeeray dadka Gaaris jooga ma hadli karaan kuwa wajeer jooga ma hadli karaan madaxweyne adiga ayaa madaxweyne u ah madaxweynihii Maxamed Siyaad Barre waa kii ka hadlay xasuuqii Gaarisa Gubay iyo Wagala dadkii Gaaris Gubay lagu xareeyay Dubad Cali Camay baa kamid ahaa lugtiisa waa kan ku waayay asagoo dhiman raba waatan la sii daayay markii aan u gargaaray gurmad qaran dadkii Muqdisho ku dhintay wiilkayga markii la dilay Dubad Cali Camay abiis waad ka aamustay sidii madaxweynahaygi kugu gargaaray imaad garab istaagin madaxweyne maanta ummadan u istaag kuwa gobolka waqooyi bari waa la laayay ma hadli karaan kuwa Jubbooyinka waa la laayay degdeg ku soo celi Maxamuud Sheekh inta uusan dhimanin galabta 10 saacna aysan kugu gaarin madaxweyne hadduu dhinto waa lagu weydiinayaa wadani askari qaran dhalay buu ahaa xooga dalka Soomaaliyeed buu abiisa ahaa dhiiggiisa Soomaalinima ku jirta waxa lagu barbaariyay difaaca dalkan qofna nagama hor istaagi kara Soomaalinimadan ku dhalanay qofna ogama cabsanayno waxaan nahay caruurtii xooga dalka Soomaaliyeed waxaan ugu la koriyay kacaankii Maxamed Siyaad Barre difaaci uu difaacay oo abayaasha ka soo qayb qaateen waxaan doonaynaa dalkeena inaan u dhimano waxaan doonaynaa dhiigeena inaan u shubno cid naga hor istaagi kartana ma jirto madaxweyne ha noo aamusin indhaha naga fiirinin dadkeeni way dhamaadeen sabab ay ku dhamaadeenna ma garanayno degdeg ku soo celi Maxamuud telefoonna u dir Axmed Madoobe intaana ninka la dilin qofka la qaado isla markiiba waa la dilaa sababta loo qaaday diyaaradaha helicopterka labada xabo isdaba ordayso shacabka midna sawiraysa midna rasaasta ku ridaysa hubka culus ayuu shalay soo dhigay beejkiisa isla shalayna waa la qaatay
sunta Kenya 8 sano gobolka gaday ku shubtay waxa dhashay caruur xibnaha ka maqan kuwii aan baahinayo arkayseen oo dabadiiba loo samaynin sababtaas waa madaafiicda Kenya dhulkeena ku garaacday 8 sano ay joogtay ilmihii dhashay madaxa wada weyn 8 sano kadib ilmihii dhashay lugaha qaar ka maqan ilmihii dhashay indhaha ilaa yihiin ilmihii dhashay 8 sano Kenya dalkeena ku jirtay xibintii tarankaba qaar ka maqan tahay waxaas waa sunta iyo madaafiicda ay dhulkeena ku garaacday madaxweyne waa inaa Maxamuud Sheekh Gooni soo celiso kama hadlin intaas oo sana dhibkii ugu dhacay laakiin ma qaadanayo inuu asaga maanta dhinto waa difaaci dalkan waa ninka dalkan u istaagay asagoo celwaaq joogu go'aansaday inuu dalkiisa difaaco madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa inaa telefoon dirtaa Axmed Madoobana degdeg dadka maqan waa inuu ku soo celiyaa Maxamuud u horeeyo 8 kale celwaaq laga qaadana ku xigaan qof dambe waa inuu dhimanin celwaaq ma Israa'iil ma Falastiin oo kale noqotay miyaada fariimaha lagu diray arkaynin madaxweyne waa inay ragga dhamaanayo iyo gabdhaha aad joojiso waa ina dalkan si wada jira loo difaaco kuwa maanta gobolka gada fiirsanaya haddaad Sool joogto haddaad Sanaag joogto haddaad Muqdisho ku nooshahay haddaad Hargeysa ku nooshahay haddaad Baydhabo ku nooshahay marka gobolka gada la soo dhameeyo adiga ayaa ku xigay ogow qof kasta oo dalkan adiga iska leh qabiilna iska malahan aad baan u qiiroonayaa ma sii hadli karo fariintan gaarsiin madaxweynaha si aan ku gaarsiin kartaba waxaan nii sheegayaa dalkan inaga iska leh waxaynu nahay dad aqoon leh 15 qof baa soo difaacday maanta inta aqoonta leh way ka fara badan tahay 15kii nin walba oo dalkaaga difaac madaxweynahana waxaan leeyahay degdeg u hadal indhaha haynaga fiirinin Axmed Madoobana telefoon u dir ha soo celiyo ragga maqan Maxamuud wariyihii soo tabiyay xasuuqi ugu dambeeyo qofka 2 maalin 3 maalin baa la haynayaa maalinka afraadna waa la dilayaa dadka yaga inaan ka daba harno ma ahan inaan aamusnana ma ahan Soomaaliyeed dibiga cadqal dibiga madow ha ku quus qaata weeye haddaa moodaysid gobolkan hal qabiil inuu iska leeyahay aniga hataa qabiilka gobolkan sheegta uma dhalanina Soomaalida kale ayaan ahay laakiin dalkan baan ku dhashay cid walbana waa ay degan tahay sida la soco haddaa dalkaaga difaaci weydid wallahi ilmahaaga meel ay ku noolaanayaan malahan meelaha xalaha shaqaynaysa ku cunaysid malahan guri aan madaxa dhigaysi malahan dalkan adiga ayaa iska leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان قيري سنهي هذا الكلام سي وذكر.